dhulkeena inaga marka waxa ka dhacay wixii ugu darnaa labadii dambi ugu darnaa bacda shirki oo tafarruq qabiil qabiil la soo dhaafay gaalo marka ay soo adeegsanay qabaa'ilka Soomaaliya oo dhammaantood way adeegsadeen Ethiopia iyo Kenya way adeegsadeen qof ilaahay u naxariistay maahane dad baa waxay isu malaynayaan maryahoodu inay u cadcad yihiin hebel baa adeegsaday Ethiopia hebel baa soo qaatay Soomaaliya let's speak guys true anga run hadal annaga ma maqnin mana aan dalka ka maqnayn dalkaan joognaa yaa waaye reerka aan Ethiopia soo adeegsan tell me yaawe yaan mingisto soo adeegsan yaan meel soo adeegsan yaan hurka ka soo qaadan si qarankii Soomaaliyeed loo burburiyo yaa waaye idan Soomaalidu waa dambiile yaalbana markaasaan waxaan ku darsanay inta shir way noo qabto in layna yiraahdo see xubnaha u kala qaybsanaa maanta waxa akhrinayay joornaalka qosol oo oy gobol nin jooga oo madaxa wuxuu leeyahay dawlad Soomaaliyeed ma dhacayso mana sugnaanayso reerka iyagu haddaanay inta helin what the hell you are talking about maxay tahay reerka iyagu haddaanay tahay dambiilaba tahay xukun waxaad ku xukuman tahay in lagu xukumo maxkamad baad saaran tahay qaran Soomaaliyeed baad burburisay ummad baad baabi'isay jiil baad baraha ku daadisay qaxooti baad malaayiin ka dhigtay gaalaad malaayiin ka dhigtay yaa ka dhigay you not other one it's not America it's not Europe it's not Japan it's not Kenya nor it's Ethiopia it's only Somalis who killed themselves waayaga وإذا شيء رنت معها والله بالله أنا حين عيار أنت صومالي إسكدي شيء إيا أنت إثيوبيا كدي شيء يا بلن صومالي أنت يدي شابلن صومالي أنت اللي سابلن صومالي أنت بلايك وسوق جاب سابلن and today دل كاني محول بابا سيهاي only our reason أنك السبب تنوي قال أنا كملا $500 يدل كذا كويب سدان قال أنا كملا مقعب اللي يلا كويب سدان دل كذا قبائل باكو تاجرة كاس كليجيس نما يبسدين هدي عن قبائل كو تاجرين ميونا يبسن لها كليجيس نقدر لها سوق من نقص قدر لها ضل قطي بعنا هاي لا يبسدي سوق ولا بقول رخيصا أدونك اللي يبسدي and still we are talking about قل بنقلينا بركاسورنا غير هبل سكان كنا إذن ولا ريال سبب أنا يدتكم يجوا يسكت سمين إلهي سبحانه وتعالى عندنا مظلم ميوه ثورات كان يتفرقنا عندنا ومعها مصلحة عندنا وضن دحدث ومعها مصلحة تفرق يسدل يديك ومعها ومدى إسلامك ومدى يكبها بأيس النبي قيدنا عليه الصلاة والسلام وقدقه وشاقه لكن سؤال بقى إيمانيسا سيدي يلنا هدي ظلم أوضعه سيدي يلنا شريعة وحي أسميسي ودول الله مري أسميسي نعم أنا وحكت المامو وحيرا عن كت المامو أولا horta hadii tafarruq dhaco oo dalkii qaranku u burburo nacam saan sheegay dulmi baa dhacay oo macaasi baa dhacday dawladday markay qaran inoo jirtay dulmi baa dhacay ma diidayo waataan sheegay gobolada la dulmiyay qabaa'il baa la dulmiyay dad baa la laayay ummadaha la kiciyay ma ignore garaynayo mana diidayo waa wax dhacay xaqiiqo way laakiin see loo saxaaway ka taagan tahay macadow baa la soo adeegsadaa ma Ethiopia inta uu tagaa oranaya kaale dalka Soomaaliyeed qabso qaranka Soomaaliyeed burburi ma saasa oranaya maya saas looma saxo sida loo saxayaa waxa weeye koow ummaddu waxay ku baabaadaa ku hagaagtaa oo yani lagaga ilaaliya tafarruq iyo khilaaf koow horta kitaabka Ilaahay iyo sunnadiisa in la qabsado labo in lagu kulmo sharciyada islaamka in la dabaqo oo iyada la hirgeliyo saddex in madaxtinimada iyo ummadda qarannimadeeda in la ilaaliyo iyo dawladnimadeeda nacam
annagoo dulmi ku jirnay oo dhibaato ku jirnay waxaanu ka liidanaa wadciga aanu hadda ku jirno dawlad kasta oo wadadeenna martana ama suuriya ha ahaato ama ha ahaato tunis ha ahaato ama libiya ha ahaato ama masar ha ahaato ama yemen ha ahaato nafsal waday maraysa iyaduna hadday marto wadadeennii waxa weeye qarankaas ha daciifo dulmi ha ku jiro dhibaato ha ku jiro isagaa dhaama fawdo iyo kala tag iyo dhiig iyo isdagaalid iyo qax iyo gaajo iyo cadow qabsada dalka oo u tashada buu ka daran yahay qaran inuu jiro walow uu dhib badan yahay marka qarannimadana in la ilaaliyo oo madaxnimo iyo dawlad iyo kala dambayn ay jirto dawladnimo ay jirto walaalayaal dawlad xun dawlad yani la'aan bay dhaantaa annagu waxaan nahay jiilkii ku soo koray oo ku awayban ka dambayna odayaashii naga horreeyeyna waa naga horreeyeen way soo arkeen waxaanu aragnay dawladnimo iyo macaanka ay leedahay saas darteed baan waxaan meesha ordaya iyo waxaan socda magacay doonaan ha sheegtaan diin ha sheegtaan islaam ha sheegtaan wax kale ha sheegtaan ayaanan ka aqbalahayn dawlad la'aan iyo qaran la'aan iyo ummadnimo la'aan wada jirta baan wax ku keenaynaa kana ka aqbali mayno. We're not going to accept that. dawlad xataa daciifa baa nooga roon oo qaran ah oo ummadnimo ah. anigu naftaydan tusaale ka soo qaadaya nacam xumaanta aan ka sheegay dawladnimadaas baa haddana waxaan dareemayaa fakhriga ay lahayd wanaagga ay lahayd dawladnimo iyo qarannimo dalkayga markaan joogay 1972 tusaalayaal haddaan usoo qaato naftayda that is example way dad badan ay la midina waa jiraan tuuladeedii aan ku dhashay qandalaa la yiraahdo gobolka bari ee Soomaaliya ka mid tahay waxay ka fogtahay caasimadda Soomaaliya 2000 oo kilomitir bay ka fogtahay oo u jirtaa in that tuuladaas magaaladaas degmadaas yarta ah ee population keedu 10,000 aanu markaas ka badnayn 1967 68 69 70 ayaan elementaryga ku dhigtay waxaa ku yaala cusbitaalkii yaraa waxaa ku yaala police stationkii waxaa ku yaala iskuulkii waxaa igu yaalay biyihii oo aan ku cabayay waxaa igu imanaysay warqadda walaalkay uu ka soo diro Europe salkeeda uu ka soo diro I was getting in the post office in Qandala baan ku helay today 40 sano baa 50 sano laga joogaa maanta Hargeysa cidna ma ku diri kartaa warqad you can send it in the post office ma ku diri kartaa boosaas ma ku diri kartaa qofna warqad waa simple thing service oo dawladnimo leedahay waa very simple service guriyaha waxa idinku soo wada dhaca waraaqa idinku soo wada dhaca check baa ii soo dhacay bill baa ii soo dhacay kana ay yimi you are not going ma qiimeynaysan arrimahaas waxa ay leedahay because dawladnimo iyo qaran baa jira meesha nidaam baa jira system baa jira keenina waan burburinaynaa we don't need it ma rabno inaan samayno ma rabno inuu jiro waxaan ilaalinaynaa traffic light baan ilaalinaynaa wadamada kale waxaan ilaalinaynaa traffic lightka stop waa istaagaynaa innaga soo maaha dhiigaan ku tubanaynaa qaliilkan ku tubanaynaa dulmigaan ku tubanaynaa baababiyana dalkeena waa duugaynaa isagoo nool baan duugaynaa ma ogolin inaan is ogolaano ma ogolin aan ku wada noolaano magaalada aan ku wada noolaano ma ogolin kuwa hadda ku dagaalamaya Soomaaliya ku dagaalamaya ee ay koonfurla degi kari laada ee maalin walba oranaya waxaan ugu shaqaysanaya United Nation iyo organization iyo dullaaliin adduunka ka kala yimi meel kasta habar kasta wayna baayacaysa adduunka joogta mujrim kasta adduunka jooga Soomaaliya buu baayacaya maanta wax kasta iyaga u soo shaqo tagaan kii shaqo waay laqad hazulat buu yiri ninka saarka hazulat wa bana huzaluha وسامها كل مفلس وحوي رضا عاتضة انت عاتودي او عاتن نقطي با رحديده waxa taabanaya mid kasto aan shilin haysan oo farmadow raxdu soo taabanaya xuleeyahay neefkan ma gata shilin ma haysto hal shilin isku furto laakiin waxa kan caatasay u noqotay ayuu la holinaya inaga waxa ina holinaya cid kasta inuu madax noqdo Soomaaliya waxa holinaya nin kasta mid kasto suuq joog ah oo kuwii ahayd xabsiga in lagu wada guro ama ummadda laga wada qabto meel laga istaajiyo bay ahayd waxa ma doonaya maanta wasiiro inay noqdaan dawladda inay noqdaan oo nagu baayactamaan magac Soomaaliyeed ku baayactamaan annagana waa u sacabtumaynaa xafladaan u qabanaynaa lacagaan siinaynaa war maxay tahay aawo ummadaas marka waxa leedihiin ilaahay baa idin dulmiyay ina ahaano dawlad la'aan ilaahayna ma dulmi
marka qaran baan meesha ku haysanay iyadoo saasa waa in la saxaa marka in la burburiyo maaha in la saxo bay ahayd ma in la burburiyo oo aan konton sano dib u noqdo oo aan boostada qandara ay igu iimaanaysay maanta ay noqoto caasimadii dhamayd la idin sheegayo nothing wax ka jira ma jiraan muqdisho waabad maqli jirteen ma tagteen annaga tagnay weydiiyo waagay jirtay ma jirto magaalo la yiraahdo muqdisho ma jirto waa magac xaafadaad maqashaan warshada baastada boondheere hodon مش عارف ايش دق في ركتاده واحد جيران ما جيران وضم بس وي يا ضم بس كدي كو هدا جوجه oo ku dagaalamaya qaar muslimiinimo iyo wadaad sheeganaya diin ilaahay darteedna waxaan ilaahay uga cudur daaranaya in magaca diintiisa lagu sameeyo waxa soo kale ilaahay waa uga cudur daaranayna waxaan ilaahay uga cudur daaranaynaa Soomaalinimo iyo sharafteed in lagu sameeyo waxa dawladnimo lagu sheegay ee baabaas ee gadashada ummadda ee wiilka yar ee United Nation Organization-deeda jooga Nairobi ay gacanta ugu yeeraan oo u yeeriyaan oo u dictate garayaan waxay doonayaan waxa soo kale in Soomaalinimo lagu sheegana ilaahay baan uga cudur daaranaynaa ya way اوكي maxay ku ansaxaysaa waxa kan akhayo ikhwaani marka fawda inay timaado oo tafarruq yimaado qaran burburo xal maaha xal waxa hadda caalamka islaami meelihiisa qaarkiis ka socdana wadadu ku socdo waa wadadii Soomaaliya waxba ku gaarin ma waxaan rabnaa marka wadamada kale inay saas oo kale noqdaan ma uguma naseexayn karno laakiin isla mar ahaantaas madaalimiinta iyo nimanka saa u galay dulmiga saa u galay baan taageeraynaa oo aan leenahay ha joogaan ma wada u dhaxaysa jirta oo wax lagu saxo ma ilaa in dil iyo fawdo wax lagu saxaba ma taakaliya wax lagu saxaa yaa yiri saas there is no other solution ma jiro solution kale imma maut wa imma fawda labadaas unan kala doorano miya ama dictatoriyo iyo baaba iyo dulmi ama fawdo iyo halaba baabado aniga hagubato gadaashay sida hadda nimanka xukaamta qaarkood ay leeyihiin carabta masaasa ama keenni horeba uu yiri masaasa maya wax u dhaxaya jira waxa u dhaxaya waa maxay waxa weeye awalan ikhlaas dadka horta wadanka leh walaaliyaan gaal iyo muslim waxay yihiin ilaahay subhanahu wa ta'ala ummad waxeeda uu ma hagaajiyo hadaanay dalkeeda iyo diintan inay wax u qabanayso ikhlaas aan wayn diinta markaad ka soo tagto dalkiisa hadaan qofku ikhlaas u hayn waxa ma qaban karo waxa uu hagaagi karaan it means waxa weeye hadii raba Soomaaliya inay ka baxdo dhibaatadan ama dad kale inay ka baxdo waa in la helo dad leadership oo nadiif ah oo ummadooda doonay inay wax taraan ee aan ahayn dad baysteen iyo koob shaah lagu iibsado in magac Allah inta loo sameeyo labo waxa loo baahan yahay amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar qofka dulmiga sameey iyo xukaamta dulmiga sameeynaysa dadka iyo shacabka iyo ummadda iyo culimadeeda iyo dadkeedu waa inay oran karaan war waxaas waa dulmi waxba u dhaxeeya in la dagaalamo iyo in wax la sheego wax la saxo dawladaha dimuqraasiga waxa ay leeyihiin waa garanaysan waa la xisaabtamaya xaakimka waa la xisaabtamaya waxba la joojinaya waxaas waxa lagu gaaray dadaal iyo kifaax meel cid laga ma helin marka inaga ma waxaan u dhaxaynaynaa in imma inaan sacabtumayaal noqono sacabtumayaalkii laftigoodii baa maanta waxay rabaan anaga inay yiraahdaan waxbaan hogaaminay maxaad hogaamisaa shalaba sacabtumada ay dulmiga u sacabtumaysa maxaad hogaamin kartaa amis kunt safiq maanta wax qaban kartaa ma qaban kartid nothing marka waxa u dhaxaya waxa weeye in wanaagana la faro munkarka la reebo geesinimadeeda la yeesho sida culimadii u dhimatay iyo dadka u dhimanaya كلمة حقا هنا يراهدان وانا تي النبي عليه الصلاه والسلام ونفري ارنك صدحات waxa way sabr baa loo baahay نعم صبركم محل با ها صبركم حل مشكلooyinka badan buu xal u yahay oo hadii qofkan aniga xumaan igu sameeyo anama inaan tiyo kale ama mid ka daran ku sameeyaba maya hadii dhibaato ka dhacdo inaan sabra ama si waji wanaagsan xaqiga aan ku gaaraa صدح وإن إصلاح ذات البين أوجرا أو أي جرتا دبو هشيسين دبعة دبو هشيسين بحال لي لما تصل وحنا لكم أولنا أنا دولة دبو هشيسين what kind of دبو هشيسين
حيث دبيش سنت بينوا يبلغ حاجة كم جيران saan sheegnay dadkii muslimiinta ahaa ee dhibka la marsiiyey irdigooda lagu xadgudbay gabdhahooda la kufsaday xoolahooda la dhacay dadkooda la laayay qabaa'il Soomaaliyeed oo hadda isku sheega 4.5 baanu nahay